halkan waa wadada isku xirta garoonka diyaaradaha ee Jowhar iyo magaalada caasimadda ee maamulka Hirshabelle. dhererkeedu waxa uu gaarayaa 17 kiiloomitir. wadada aad ay u burbursan tahay sida aad aragtaan. madaxda maamulka ayaan xil iska saarin wax ka qabashada wadadan oo ay marisooda u sameeyeen madaxda martida timaada iyo shacabkaba. waqtiyada qaar waxaa la arkaa in gawaaridu ay gadoomaan ama ay rogmadaan, mana jirto cid wax iska weydiisa xaalka wadadan oo waxaaba dhacday in la lunsaday lacag loogu talagalay dhismaheeda. kambani lagu magacaabo East Africa Trading oo uu leeyahay Imaan Maxamed Cali ayaa qaatay mashruuca dhismaha wadada u dhaxaysa Jowhar iyo garoonka, waxaana kambaniga isagana uu heshiis la sii galay shirkad uu leeyahay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. mashruuca waxa ay ahayd inuu bilowdo 2018, qorshuhuna waxa uu ahaa inuu soo dhamaado Maarso bartamihii sanadkan 2019, laakiin nasiib darro waxaa dhacday in madaxda maamulka Hirshabelle ay shirkaduba ay isku raaceen in lacagta aan waxba lagu qaban, taa bedelkeedana ay kala qaybsadaan. lacagta loogu talagalay dhismaha wadada waxa ay ahayd $1,900,000. taakulaynta midowga Yurub ee la soo marsiiyo dawladda dhexe laguna taageero mashruucyada maamul goboleedyada ayayna ka mid ahayd lacagta la lunsaday. waxaa loo shubay wasaaradda maaliyadda ee Hirshabelle, iyada ayaana bixisay lacagta sida aan xogta ku helnay. mashruuca laga bixiyay lacagahan waxaa la yiraahdaa Search Support. dad xog ogaal ah oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin ka tirsan maamulka iyo bulshaduba waxa ay noo xaqiijiyeen in shirkadda East Africa Trading iyo maamulka Hirshabelle madaxdiisa sare ay ku kala heshiiyeen in lacagta ay kala qaybsadaan. shirkadda East Africa Trading oo uu leeyahay Imaan Maxamed Cali waxa ay qaraabo dhow yihiin Cali Guudlaawe Xuseen, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle, waxaana lagu naasnuujiyaa mashruucyada laga fulinayo deegaanada maamulka si gaar ah marka ay timaado gobolka Shabeellaha Dhexe. maadaama uu Cali Guudlaawe uu ka shaqayn jiray kambanigan ka hor intaan loo magacaabin gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe sanadkii 2014, xilligaas oo ahaa intaan la dhisin maamulka hadda jira ee Hirshabelle. lama saadaalin karo sida uu ku dambeyn doono xaalka wadadan, mana muuqato isla xisaabtan dhaba oo ay la kulmayaan madaxda sare ee maamulka Hirshabelle. waxaadna moodaa in ay iska jiifaan xildhibaanada maamulkaasi. musuqmaasuqa baahsan ee ka jira Hirshabelle waxaa ka mid ah inuusan isticmaalin hab maamulka maaliyadeed ay isticmaalaan dowlad goboleedyada, kaas oo waafaqsan hab maamulka maaliyadeed ee Bankiga Adduunka. hab maamulkaas maaliyadeed ay isticmaalaan maamul goboleedyada waxa ay maamulka Hirshabelle ku shaqeeyeen kaliya 9 bil 3 sano iyo dheeraad oo ay dhisan yihiin. wasaaradda maaliyadda ee maamulka Hirshabelle ayaa maamuleysay oo ay ku shubaysay koontada waafaqsan hab maamulka maaliyadeed oo ay ku shaqeeyeen maamul goboleedyada. goobaha canshuuraha maamulka Hirshabelle uu ka qaado waxaa ka mid ah Ceelcadde, Xaaji Cali, Xawataako oo Balcad iyo magaalada Jowhar oo dhammaantoodba dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe. gobolka Hiiraan weligiis koontadaas lacag kuma soo shubin xitaa 9 bil ee maamulka Hirshabelle uu ku shaqeeyay. mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle oo ay qusayso inay ka hadlaan arrintan ayaan xiriiro kala duwan la sameynay si aan su'aalo dhowr ah uga weydiino arrintan. hayeeshee waa ay ka jawaab waayeen wicitaanadeena qaarkood, halka kuwa kalena ay ka gaabsadeen in faahfaahin dheeraad ah ay na siiyaan.